duhur wanaagsan qodobka maanta idin haysa waxa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo soo gaaray Muqdisho iyo soo dhaweyn heerkeedu sareeyo oo loo sameeyay hay-adda NISA oo sheegtay in howlgal ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha lagu soo qabtay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab dowladda Britain oo ciidamo military ah oo tababaraysa maamulka Somaliland maxkamad ku taala Tanzania oo xukun ku riday Soomaali loo haysto inay ka tirsan yihiin kooxda burcadbadeeda Soomaalida dowladda Hindiya oo sheegtay in Puntland ay ka caawinayso la dagaalanka burcadbadeeda kolonyo ciidanka Afghanistan ah oo weerar lagu qaaday dalkaasi iyo hogaamiyaasha Ruushka iyo sidoo kale wadanka Kuuriyada Waqooyi oo kulmay duhur wanaagsan waa khamiis 25 Abriil 2019 ku soo dhawaada faafahinta warka duhur madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo soo dhaweyn heerkeedu sareeyeen ay u sameeyeen dadweyne taageerayaal u ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed ayaa faafahinaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maanta waxaa soo gaaray wafdi hogaaminayay madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ah ahna hogaamiyaha xisbiga himilo qaran mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu si weyn halkaas loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka mid ahaa wasiirka wasaaradda amniga Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale xildhibaano siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo watay boorar lagu xardhay sawirka Sheekh Shariif iyo astaanta xisbiga himilo qaran ayaa taagnaa wadada u dhaxaysa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo xarunta xisbiga oo ku taala meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha daqiiqado kadib ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay boqolaal shacab ah oo ku sugnaa xarunta xisbigiisa himilo qaran oo ku taala agaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho waxa uuna uga mahad celiyay shacabka iyo boqolaalka taageerayaasha ah ee soo dhaweynta u sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed runtii sharaf weyn ay tahay maanta inaan idinla joogo aadan uga mahad celinayaa soo dhaweyntan qiimiga leh ana og xilliga kulul oo aad meeshaan wax badan taagneedeen adinkoo dareenkiina uu yahay in la helo mataqaana axzaab siyaasadeed oo runtii dalka hore u sii wada insha Allah tabaaraka wa tacaala waa idinku soo dhaweynayaa xisbiga himilo kulley waa idinkaga sheekay doonaa waana ka fogan doonaa laakiin munaasabadan waxaan ka dhiganay inay noo noqoto munaasabad mahad celina marka mar kale qof kastoo mataqaana ka soo qayb galay waqti dheer bixiyey laga yaabo inuu cariiri la kulmay waa runtii uga mahad celinaynaa dadaalkiisaas waana wada joognaa insha Allah tabaaraka wa tacaala waxaan u malaynayaa inaanan iloobin laashimiinta iyo mataqaana maxaan ku yiraahdaa suugayahanada oo runtii qayb weyn ka ah barnaamijka wacyigelinta iyo kor u qaadida wacyiga dadka Soomaaliyeed meel joogaanba madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarkeed ahna hogaamiyaha xisbiga himilo qaran oo muddo toddobaadyo ama dhowr bil ka hor ka tagay magaalada Muqdisho oo maantana dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha siyaasadeed ee maamuuska kule shacabka Soomaaliyeed waxaana lagu xasuustaa inta uu xilka hayay ee dowladii ku meel gaarkeed magaalada Muqdisho inta badan ee maamulayeen ururka Al-Shabaab oo dagaal kaga saaray waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu qayb galo shirweynaha qaran ee xisbiga himilo qaran oo ku qabanaya magaalada Muqdisho kaas oo la filay inuu dhiso xubnaha golaha fulinta xisbiga oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxkamad ku taala wadanka Tanzania ayaa xukun ku riday Soomaali loo haysto inay ka tirsan yihiin burcadbadeeda Axmed Tifo ayaa faafahinaya maxkamadda sare ee Dar es Salaam wadankaasi Tanzania ayaa la soo warinayaa in 7 qofood oo muwaadiniin Soomaali ay ku xukuntay xabsi daayin kadib markii lagu helay eeday la xiriirta burcadbadeednimo garsoore Yusa Malayambina waxa uu toddobaadkii hore ka soo horjeestay eedaha dhammaan loo soo jeediyay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo kala ah Maxamed Aadan Bashiir Roble Muxsin Xaaji Cabdulwali Cabdiraxmaan Faragani Abdul Ali Nuur Ali iyo Umar Maxamed oo la sheegay inuu ku magac dheer yahay Muude kadib markii lagu soo eedeeyay in ay raggan afduubteen markab
waxa uu tixgeliyey garsooraha maxkamadda xukunkan ku riday 7 Soomaali ah 14 qofood oo markhaati ah iyo sidoo kale 6 dukumenti oo lasoo bandhigay waxaana doodu ay socotay muddo saacada. Garsooruhu ayaa soo gabagabeeyay dhammaan eedda xeer ilaalinta si ku filan cadeen ayuu sheegay in loogu haysto kiiskan shakina aysan ku jirin 7 Soomaalida ah in dambigaas ay galeen. dadka waa qareenada u doodayay 7 muwaadiniinta Soomaalida ayaa ka dalbaday garsoorka in ugu yaraan xitaa laga dhimo ama laga qafiifiyo xukunka maadaama aysan ahayn kuwo xabsi daa'im lagu xukumo waa eedda loo soo jeediyo darteed. intii lagu jiray dooda maxkamadda sidoo kale waxa ay qaadatay sida wargeys ka soo baxa wadankaasi Tanzania uu soo daabacayo ilaa iyo 7 saacadood iyadoona xeer ilaalintu ay matalayeen xeer ilaaliyaha qaranka wadankaasi Tanzania Makunda Mashanga iyo sidoo kale ninka qareenka sare ee wadankaasi Salasiya Sheli. waxaa qayb ka ahaa ragga xeer ilaalintu matalayay xeer ilaaliye lagu magacaabo George Praza. dacwad oogayaasha sidoo kale waxaa matalayay rag lagu kala magacaabo Ayuse Kompa, Takis Makiwara, Ruba Ibrahim, Masema Omari, Dennis Tumani, Bakit Bawis iyo nin la yiraahdo Gales Zaravinia. waxaana ay sheegeen dhammaantood in raggan ay ku taagan yihiin ama ay galeen qodob waa eed la xiriirta burcadbadeednimo taas oo ay sheegeen in xukun adag uu ka yaalo dastuurka wadankaasi waxaana ay cuskadeen dastuurka qodobka 66 xaraf waa qodobka 66 kow xarafkiisa A iyo B waxaana ay sheegeen raggan in ay tahay mid sax ah xukun daa'inka lagu riday sidaas darteedna maxkamaddu ay arintaas ku dhawaaqday. xukunka raggan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay 3 bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 ay badweynta Hindiya gaar ahaan mashruuca dhaqaalaha ee Tanzania ay weerareen markab ay lahaayeen oo la yiraahdo Samis Alwood waxaana ay raggan la sheegay in ay ku tacadiyeen shaqaalihii markabka. dhinaca kale dowladda wadanka Hindiya ayaa sheegtay in maamulka Puntland ay si gaar ah uga caawin doonto la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa kula kulmay magaaladaasi safiirka dowladda India ee Soomaaliya Ambassador Rahul Jabra. kulanka oo ahaa mid muhiimadiisu gaar ah waa mid muhiimadiisu sareysay ayaa labada dhinac waxay si weyn u soo dhaweeyeen in wada hadal ku saabsan arrimaha ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, caafimaadka, tababarada shaqaalaha rayidka ah iyo arrimaha ammaanka ay ka wada hadlaan. Ambassador Rahul Jabra ayaa tilmaamay inay aad ugu faraxsan yahay kulankan muhiimka ah waxaana Puntland uu ku amaanay kaalinta ay ka qaadatay ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. la dagaalanka burcadbadeeda ayuu sheegay in Puntland ay ka caawin doonto ciidamada India ee ku sugan xeebaha Soomaaliya. safiirka ayaa ballan qaaday in Puntland ay dhinacyo badan iska kaashan doonaan si xiriirka labada dhinac uu u noqdo mid wax badan oo faa'iido leh soo kordhiya. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa wadanka Kenya oo uu halkaas kulamo kala duwan oo heerar kala duwan leh kula qaadanayay wakiilada beesha caalamka ayaa aad u soo dhaweeyay. dhankiisa kulanka waxa uu xusay in Puntland ay diyaar u tahay ka shaqaynta kor u kaca xiriirka soo jireenka ah ee Puntland iyo Hindiya. dowladda wadanka Britain ayaa sheegtay in ay ciidamo military ah u tababarayso maamulka Somaliland. Maxamed ayaa faahfaahinaysa. kadib kulan magaalada Hargeysa ee deegaanada Somaliland ku dhex maray wafdi ka socday daliska ciidanka Ingiriiska ee fadhigeedu uu yahay dalka Itoobiya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaas ayaa lagu go'aamiyay in Ingiriiska uu ciidamo u tababaro Somaliland.
wasiirka gaashaandhigga ee Somalilan Cabdiqani Maxamuud Caateeye, taliyaha ciidanka Somalilan Nuux Ismaaciil Taani iyo taliyaha ciidanka Ingiriiska ee saldhiggeedu uu yahay Itoobiya ayaa isku raacay in Somalilan loo tababaro ciidamo sidoo kalena shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga ay ka caawiso dayeenta howlahooda. Sidoo kale intuu kulankooda socday ayaa waxa ay labada dhinac ku heshiiyeen inay yeeshaan wada shaqeyn dhab ah taasoo dhex marta taliska ciidanka Ingiriiska ee saldhigoodu uu yahay Itoobiya iyo Somalilan. Dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay ka mid ka tahay dowladaha taageera Somalilan isla markaana xiriirka wanaagsan uu kala dhaxeeyo, waxaana xusid mudan in dhowr jeer wafdi ka socday dalkaas uu degay magaalada Hargeysa iyaga oo kulamo la qaatay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay howlgal ay ka sameysay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho inay kusoo qabatay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. war ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxaa lagu shaaciyay in ciidamada ammaanka howlgal ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho lagu soo qabtay xubin ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaana ka mid ahaa amniyaadka ururkaasi. howlgal aan cidi wax ku noqon oo ciidanka amnigu ka fuliyay ceelasha biyaha ayaa waxaa lagu soo qabtay howlwadeen amniyaadka Al-Shabaab ka tirsanaa. saraakiisha amniga ayaa ku haya baaritaan la xiriira howlaha guraacan ee uu ku jiray ayaa lagu yiri war lagu daabacay bogga Twitter-ka ee hay-adda NISA. sidoo kale NISA ayaana shaacin magaca shakhsiga ay sheegeen in ay soo qabteen waxaana ay sidoo kale baahin sawirkiisa. ha yeeshee waxaa arrintan imaanayaan xilli habeen ka hor howlgal ka dhacay degmada Shibis lagu soo qabtay xubin sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab sida NISA ay sheegtay oo dilal qorsheysan ka fulin jiray degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. warkaas hogaamiyaasha Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi ayaa kulmay iyaga oo labada hogaamiyana ay ka wada hadlayaan arrimo badan xilli Kuuriyada Waqooyi ay hardan xoogan uga jirto Mareykanka. hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka Kim Jong-un iyo Vladimir Putin ayaa la sheegayaa inay kala siixdeen heshiisyo dhowr ah. labada mas-uul oo ku kulmay wadankaasi Ruushka ayaa waxa ay aad u falanqeeyeen arrimaha ka taagan gobolka iyo saameynta ka dhalan karta iyaga oo soo hadal qaaday wadahadaladii aan miro dhalka ahayn ee ay yeesheen dhowr jeer madaxweynayaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Kim Jong-un ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu la kulmo dhigiisa wadanka Ruushka Vladimir Putin isaga oo rajeeyay in xiriir wanaagsan oo labada dhinac ay yeelan doonaan. dhanka kale Ruushka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi oo ka mid ah awoodaha caalamka in ay tahay in xiriir wada shaqeyneed lala sameeyo, waxaana heshiisyada ay wada siixdeen sidoo kale ay ku soo qaadeen in Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ay iska kaashan doonaan arrimo badan oo u baahan dhanka militariga.